waxaa magaalada Hargeysa loogu qabtay munaasabad ballaaran kooxda kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta hidaha iyo dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa halkaasi ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta hidaha iyo dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay agaasimayaasha wasaaraddaasi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dhaqanka iyo hidaha Soomaaliland Maxamed Yuusuf Ismaaciil. haddaba wasiir ku-xigeenka iyo agaasimayaashaasi waxaa hadalladoodii ka mid ahaa dhalinyarada intii iyagoo biya ee u soo gudbay waxaan leeyahay alfa mabruuk baan leeyahay. marka maanta haddaynu koobkii qaadnay wax cusub maaha, waxaa wax ka weyn baynu qaadi jireen, waana laynooga fadhiyaa magaca sidataan ee dhalinyaradii iyo sportiskii waxa weeye wadnihii waddanka weeye. marka waxaan leenahay halkaa ka sii wada, annana waydin garab taagannahay, ilaahayna haynala wada qabto. tiimka kubadda ee ku cayaaraya wasaaradda magaceeda horta way fiican tahay. qofka bini aadamku marka la helo guul qof waliba inuu ka qayb qaato doonay kii ay qabatay wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu oo kooxda magaca ku ciyaaraysay wasaaradda warfaafintu runtii ay noqotay kooxdii ugu horeysay ee u gudubta kooxaha silo-eeda. runtii kooxo kale iyo wasaarado kale jira, laakiin isagoo tartu kuma dhammaan ayay kooxda wasaaradda warfaafintu magaceeda ku ciyaaraysaa ay runtii gudbeen oo ay u gudbeen kooxaha ku ciyaari doona kooxda silo-eeda. markaa runtii waanu idin bawaarigaynaa, waanu idin hambalyeynaynaa. tacab fara badan iyo dadaal fara badan oo ay sameeyeen aawadeed ku kasbaday maanta inay noqdaan kooxda ugu mudan naadiyadii heerka labaad ka soo gudbay ee noqday sare-eeda. waanay u qalmaan runtii dadaalkii kubadda ay muujiyeen, akhlaaq wanaaggii iyo ciyaartii quruxda badnayd ee ay muujiyeen aawadeeda inay ku guulaystaan. runtii kubadoo qura may ciyaarayn, laakiin dabcigooda iyo dhaqankooda ayaa runtii